haddaad hore noola joogtay like saar muuqaalka, haddaad nagu cusub tahayna subscribe. Muuqaalkeena caawa waxaynu ku eegi doonaa sida personal fileska ama xogtaada aad ugu shuban kartid Google adigoo isticmaalaya applicationka Drive. Applicationka mobilada qaar Samsung-ka iyagoo original ayaa lagu keenaa. Haddaad ka weydase dhib male, Play Store ka tag, Drive ku qor, la soo deg. Calaamadiisa icon-kana waa calaamadan arkayso. waxaanu tijaabinaynaa sida faylasha noocyadooda kala duwan aynu ugu shuban karno Google Drive ama xogteena Gmailka. Sidaa darteed waxaad aragtaan in dhowr badhan uu leeyahay Google Drive. Markaan doonayno inaynu xog cusub aan inoogu jirin, hadda sidaa arkaysaa waxyaabaha bartan ka muuqdo dhan waa xog aniga igu jirtay Google Drive-kayga. Waxaan doonayaa inaynu xog kale kusoo darno. Halkan aad arkaysaan homepage-ka waxaa ku taala calaamad plus ah. Calaamada plus-ka markaan doorto waxaa soo baxaya 6 badhan. Folder haddaan rabo inaan ku rito, upload, scan, Google Slides, Google Sheets iyo Google Documents. Marka si aan shay mobilkayga ku jira aan ugu shubo Google Drive ama Gmailka aan u dhigto waa inaan upload dhahaa si aan u soo dhigto Gmailkayga aan ugu rito xog igu jirta computerkayga. Marka nooc walba way noqon kartaa xogtu. Waxay noqon kartaa image oo sawir ah, video oo muuqaal ah, audio oo cod ah, documents oo iyaguna waxyaabaha documentiyada iyo PDF-ka ay noqon karto. Sidaa darteed markaad upload dhahdo wuxuu kuu keenayaa si automatically daaqadan recent-ga ah ayuu kugu soo turay, laakiin adaa ka dooranaya inaad sliding ku soo riixdo dacwada bidix. Marka sidaad arkaysaan bartan waxyaalo badan ayaa igu jira. Haddii aan doonayo gallery-ga waxay sawir ah iyo wixii muuqaal ah waan ka helayaa, waan ku dhufanayaa. Qaanada my files-ka haddaan doonayo folderada meesha igu jiraan ayaan soo dooranaya. Markaasaan inta shay aan rabo inaan ku rito Gmailka ayaan ka dooranaya. Marka Google Drive-ka si aan markii hore baan idinku sheegay, haddii mobilada qaar waxaa jira aan lagu keenin iyo mobilada qaar lagu keeno. Haddii mobilkaaga uu ku jiro Google Drive-ku toos baad u soo geli kartaa, laakiin haddii uusan kugu jirin macno male, waxaad soo gelaysaa Google Play Store, markaas la soo degaysaa Drive. Waxaan doonayaa sawir ku jira gallery-gayga inaan ku rito Gmailka. Gallery-ga ayaan hadda doortay. Sida idin wada muuqato waxaa ii soo baxay gallery-gayga ayaan si automatically aan u soo galay. Marka waxaan doonayaa inaan sawir ka mid ah sawirada gallery-ga igu jira aan gashto. Xitaa muuqaaladii waad aragtaan inay soo baxayaan. Sawirkan doonaya inaan gashto gallery-ga insha Allah Gmailka wuxuu noqon doonaa sawiro badan ayaa ku jira gallery-ga. Waxaan gashan doonaa sawirkan bartan yaalla ayaan rabaa inaan ku rito Google Drive-kayga. waxaa laga yaabaa xoogaa in internet waan isticmaalaya in mobilka culays yar iyo jam yar uu ku jiro. waa kan si direct ah wuxuu igu soo celiyay daaqadii markii hore aan ka tagay Drive-ka homepage-ka. Preparing to upload one file, wuxuu diyaarinayaa inuu hal file uu igu upload garayo Google Drive-kayga uu igu xareeyo. Markaa your own file has been uploaded to my drive. My drive-kayga ayaa hadda lagugu shubay ku yiri file-ka wadatay. Haddaan doorto calaamadan fileska sidaad aragtaan waxaad aragtaan my drive-ka halkan ii dooran oo wixii aan anigu ku shubtay oo idil bartani soo geliyaan. Marka sawirkii hadda aan shubanayay aan soo upload gareeyay isagana si toos ah wuxuu soo geli doonaa daaqadahan my drive. waa kan sawirkan ayuu ahaa sawirkii aan markii dhawaato gallery-gayga ka soo doortay aan ku soo ritay my drive ama Google Drive. Marka steps-kan soo raacnay fadlan ha ilaawin ku soo cesho muuqaalka ilaa intaad ka fahmayso. Muuqaalkeena wuxuu ku saabsanaa sida xog computerka iyo mobilka computerka lagu isticmaalo. Muuqaalka la ka soo diyaarin doona sida computerka lagu isticmaalo, laakiin sida mobilka Gmailka sawirka ugu jira gallery-gaaga ama mobilkaaga maskaxdiisa aad ugu shuban karto aad ku upload garanaya Google Drive. muuqaalka mid lamid intaan ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.